nolosha adduunyadu way bilaabantaa wayna dhammaataa ilma dhashay haddaad maqasho noloshii adduunyada ayaa u bilaabatay hebel uu dhintay haddaad maqashana noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay aakhiraduna way bilaabantaay iyadu dhammaad ma leh haddaad maqasho hebel uu dhintay noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay aakhiradii weyna ka badnayd baana u bilaabantay hebel baa go'ay innaku markaan maqallo markaaba waxaa la isweydiiyaa daday adduunye muxuu ka tegey caalamka samada dadka khalqiga ku nool ee malaa'igtuna waxay isweydiiyaan hebel maxaa ka soo horreeyey innaku markiiba waxaan isweydiinaynaa markaan maqalno hebel baa go'ay muxuu ka tegey laakiin malaa'igtu waxay isweydiinayaan maxaa ka soo horreeyey nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waa kay noo sheegay lahaa maydka marka la qaadaayo buu nebigu yidhi degta la saarto ee nacashka la saaro naftaa la sii waday hadday ahayd naf wanaagsan oo ilaahay taqaana oo adduunka dusheeda ilaahay amarkiisa qaadatay hadday ahaydna waxay leedahay anu waan liibaanay horay ii geeya bay leedahay qabrigayga horay ii dhiga haddii naftaa la sii wada ay ahayd naf ba'an oo xun oo mujrimada oo dembi badan oo shar badan hadday ahaydna waxay leedahay tani way khasaartay halkee baad ku waddaan hadalka naftaasi ay leedahay cid kasta ayaa maqlaysa buu rasuulku yidhi ilaa jinkiyo insaga un baanan maqlayn hadday labada la maqashiin lahaana dadku ismay aasayna way argagixi lahaayeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maanta waa adduunya berri waa aakhiro weeyaan maalin buu nebigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiya oo sheekaysanaya laanna saxaabadu bashar bay haayeen cabdilaahi bini cumar binukhadaab baa lagu yidhi asxaabta nebi maxamed may qusli jireen haa way qusli jireen buu yidhi laakiin iimaanka qalbigooga ku jira ayaa buuraha ka weynaa buu yidhi malaa'ig may ahayna bashar bay ahaayeen sida innaku aan u shaqaysannay u shaqaysanayeen sida innaku reereeyo ubad aan u leenahay si ka badan bay u lahaayeen laakiin qulubtooda waxaa ku weynayd ilaahay baa ku weynaa diinta ayaa ku weynayd aakhirada ayaa ku weynayd maalin maalmaha ka miduu nebigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyakoo fadhiya markaa ay sheekaysanayaan oy dhoolla caddaynayaan ee qosqoslayaan markaa buu nebigu ku yidhi low aghartum dikra haadimi alladdaat la shaqalakum camma araakum canhu yacni almowt haddaad macmacaan dumiyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aad badsan lahaydeen buu nebigu yidhi qosolkaa aan nigu arkaayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii asxaabtii nebi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nebigu dul joogo uu ilaahay xasuusiyo uu dhimashada xasuusiyo uu aakhirada xasuusiyo innakoo maanta zamankan joogna zaman alfitan zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaallana inteen uga baahi badannahay asxaabtii nebi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa aakhira inay jirto in lagu xasuusiyo inuu qabri kaa dambeeyo in lagu xasuusiyo waa arrin lagama maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay haddaad badin lahaydeen buu nebigu yidhi macmacaan dumiyaha warkiisa iyo sheekadiisa qosalka aan nigu arkaayo buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maad haleesheen maanad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waagii barye iyo gabalkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku u sii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaan ahay anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay anu gurigii madoobaa baan ahay waxaad iga shaqaysato uunbaad isoo dhiganayso iga heli doontaa nin reer madiino ansaariya janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam markii qabrigii la geliyey iilka la duldhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tahbiit fa innahu al'aana yus'al buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaalkiin ilaahay dembidhaaf u weyddiiya su'aashii qabriga hadda la weyddiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weyddiiya haddaa su'aashii qabriga la weyddiinayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo su'aasha qabriga waa maxay waa saddexdaas su'aalood weeyaan man rabbuka man nebiyuka maa diinuka mar allii markaa qofkeennaku aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashiin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba malag baa u iman doonta alfataanaan deedna way fadhiisinayaan qofka saddexdaas su'aalood bay qof walba weyddiinayaan hadduu boqor yahay waa la weyddiin hadduu caalim yahay waa la weyddiin hadduu maaragtaane weli yahay waa la weyddiin hadduu faasiq yahay waa la weyddiin bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa lala sugi doonaa man rabbuka ayaa ku rabbaynayey ayaa ku quudinayey ayaa ku arsaaqayey ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd dhaqankaagu muxuu ahaa maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay man nebiyuka
ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaanay marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayay ee iimaanka qabay ilaahay baa yuthabbitu Allahu alladhiina aamanuu bilqawli athaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhirah wa yawma yaquumu alashhaad ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka muuminka iimaanka qaba saddexdaas su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doona oo ilaahay baa jawaabta haleeshiin doona walaalayaal ilaahayna haynagu sugo allah haynagu sugo allahna inoo dhib yareeyo saddexdaas su'aalood baa qof kasta la weydiin doona marka muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqaayay ilaahay maad arkin laakiin rumee makhluuqa kuu muuqda makhluuqaad arkaysaa laakiin khaaliqa lama arka adduunka inta la joogo jidhkaad arkaysaa laakiin ruuxda lama arko adduunyadaad arkaysaa laakiin aakhirada lama arko inta adduunka la joogo manaaficda lacagtaad arkaysaa laakiin manfacadda salaada iyo manfacadda thawaabka ma arkaysid waa qayb aakhira taa lagugu tusin doonaa shayga maanta mushaahadaadka inoo muuqda ayaa hadhow toola noqon doona muqayabaad wax kaa qarsoomay buu noqon doonaa shayga qaybka maanta kaa qarsoon waxa uu noqon doonaa wax hortaada yimaadood aragto ayuu noqon doonaa maanta adduunyada ay noo muuqato aakhira ay nooma muuqato laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaalu dhinto laqad kunta fii ghaflatin min haada fakashafnaa canka ghidaa'aka fabasaruka alyawma xadiid waxaa la odhan doonaa daah iyo xijaab ayaa kaa saarnaa noloshan laakiin maanta daah iyo xijaabkii kaa saarnaa waan kaa qaadnee araggaaguba waa xadiid baa qofka la odhan doonaa oo adduunyadii baa noqon doontaa qayb bay noqoni doontaa ciyaalkiisii iyo dumarkiisii iyo daarihiisii iyo adduunyadiisii iyo lacagtiisii waa laga qarini doonaa waxaa markaa uu arki doonaa camalkii adduunyada uu soo qabtay hadduu shar ahaana wuxuu arki doonaa cuquubadiisii iyo cadhadiisii hadduu cuquubadii ilaahay cadhadii buu arkayaa hadduu khayr ahaana thawaabkii iyo ajarkii iyo khayrkii iyo xasanaadkii buu arkayaa adduunyadii waxay noqonaysaa wax kaa qarsoomay aakhiradiina wax kuu muuqatay noqoni doontaa markaas marka ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka inta aan joogno lama arki karaayo laakiin aayaadka ilaahay baa la arkayaa wa min aayaatihi alleylu waannahaar habeenku waa aayad weeyaan aayad waa maxay macnaheegu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo maalintu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo guga iyo jiilaalku waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo noloshiyo geeridu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo lab iyo dhiddigu waa calaamo jiritaanka ilaahay lagu garanayo faqriga iyo qinadu waa calaamo ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka uu shaqaynayo laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulayo waa nidaam qayba waa laynaga qariyey ma arki karayno sida ruuxda jidhka ku jirta ishaadu aysan u arki karaynin gacanta dhaqdhaqaaqeegaad arkaysaa dhegta maqalkeegaad arkaysaa lugta socodkeegaad arkaysaa madaxa dhaqaaqiisaaad arkaysaa laakiin ruuxda bini'aadamku ma arki karaan laakiin gaal iyo islaam halka markuu qof ka dhinto intuba qofkaa ka dhintay way u ooyaan haddaad tidhahda maxaad la ooyi waa kan qofkii gacan kama gu'in lugna kama gu'in dheg lagama goosan uu dhan yahay jidhkiisii oo dhan uu dhan yahay maxaad la ooyi haddii la yidhaahdana kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahaabaa meesha ka baxay shayga qiimaha le waa maxay waa ruuxdii oo ruuxda maad aragtay may si aad u garanaysaa qalbiga ayaa garanaya alqalbu yudriku alxaqaa'iq bay yidhahdeen culammadu qalbiga ayaa xaqiiqada soo taabanaya shaygii qiimaha lahaa waa ruuxda weeyaan ruuxdu waa qayb waa lagaa qariyey ma arki karaysid laakiin inay jirto waxaad ku garanaysaa xarakaat alacdaa caalamkan aad arkaysoo dhan waxa weeyaan waa kaljasad weeyaan nidaamkan caalamkao dhan waxaa ku hoos jira nidaamka ilaahay iyo nidaamulghayb la yidhaahdo marka muuminkii iimaanka qabay intuu adduunyadan joogay buu ilaahay cilaaqa la lahaa su'aasha u horraysa marka la yidhaha man rabbuka waxuu yidhi aniga rabbigay waa allah buu leeyahay meheraddaydu ima rabbaynayn allah baa i rabbaynayey dukaanku ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey beertu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey dawladdu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey xooluhu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayey anugu kumaan noolayn waxaan adduunyada dulya alloo dhane bal amarka ilaahay baan ku noolaa laakiin su'aasha dadka maanta haddii makarafoon la qaato laydhaha war maxaad ku nooshahay nin walba halka ay asbaabtu ay ka soo gasho dakhligiisu halkuu ka soo galo buu markaaba kuu sheegi mid muxuu ku odhan